السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan doonayaa halkan inaan dhowr shaqo oo maanta la soo galiyay linkisada kala duwan ee shaqooyinka la soo galiyo inaan bartan kaga yar hadlo shaqadaas osaaka qaarkood aan soo galiyay meesha loo yaqaano xog wadaag WhatsApp group and concern worldwide waahid international concern worldwide waahid international concern muqdisho ayay u rabaan boss kaasoo ah position durable solutions advisor ah oo markaa basekiisuna xamar noqon doono ama muqdisho noqon doono. waxaa kaloo qofkaasi uu kasoo shaqeyn karaa Hargeysa oo frequently travel to Hargeysa, Nairobi, baydhaba intaaba waa looga baahan qofkaas inuu ka shaqeeyo. salary gradekiisu waxa weeyaan 44,130 ama 49,830 dollar annualki waa sanadkii. shaqada durable solutionska ah qofkii u baahan shuruudeeda u baahan iyo waxyaabaha qofka looga baahan yahay come and visit Qaran Jobs. At the same time shaqadan waxa lagu hab online lagu xareynayaa by online online ma fahmi kartaan click apply barta ku qorto baad ku dhufanaysaa. That's why markaa waad wada apply gareyn karaysaa. shaqada kale aan doonayay inaan idin la wadaagaana waxa weeyaan wada January labadeeda dhacaysa shaqaasi intaan ka bixin January 2 ba dhacaysaa. Save the Children ba iyaduna waxay u baahan tahay safety and security manager oo ah conflict sensitivity and access. Soomaaliya lagu baahan yahay position laftigiisa. Therefore qofkii u baahan waa grade 2 isaguna shaqadan grade 2 bay noqonaysaa. 1 year baan qofkan shaqeynayaa. waxyaabo ka shaqeyn doona waxa kamid ah ama contractigiisu waa national ahaado qofku waana safeguarding. sidoo kale shaqadan haddii aan faahfaahin kale ka bixiyo dhanka haddaan faahfaahin ka bixiyo aqoonta qofkan looga baahan yahay horta bachelor degree baa looga baahan yahay in security management or applied social science baa looga baahan karaa. reputable university jaamacad fiican oo magac leh qof ka soo baxay baa la yidhi. waa inuu leeyahay khibrado sanad badan oo 6 sano gaariyo xagga security-ga. marka qofkii shaqada xareyn karayana xareeyo. well vision baan doonayaa oo iyaduna shaqooyin badan soo xayisiisay. well vision waxay soo xayisiisay ama rabtaa project assistant oo ka shaqeynaya wash programka waa baydhabo. at the same time waa inuu qofkaasi bal haystaa degree xagga engineering-ka baa la yidhi. taas waa muhiim xagga engineering-ka qofkaas waa inuu ka haystaa degree ama community development-ka waa inuu yaqaanaa dhismeesh waa inuu wax ka yaqaanaa. at the same time position badan bay kale well vision u baahan tahay oo dhinaca project assistant kale looga baahan yahay. cash and food assistant beledweyne looga baahan yahay. isagana waa saasi leeg. well vision sidoo kale waxay u baahan tahay beledweyne waxay uga baahan tahay project assistant cash food-ka ah. marka saddex shaqaa kale rajaynayeen bartaay soo galiyeen. waxaa kan looga baahan yahay degree in community development, agriculture or any other related field. marka shaqooyinkaas oo faahfaahsan Qaran Jobs booqo wixii markaa tale tusaale ah haddaad u baahato ama CV-ga inaan kula sii jeegarayo ama tala kaa siiyo iga soo qabo WhatsApp-ka 0634862926 0634862926 kaasad insha Allah iga soo qaban karaysaa. xog wadaag WhatsApp group-ka qofkii u baahanaa inuu ku biiro isla laftiga WhatsApp-ka hayga soo xidho insha Allah. aad ha la soo akhriyo. Thank you very much.